kooxda al-shabaab oo dhawaan laga xayiray lacag u yaalay bangiyada magaalada muqdisho laguna bilaabay ugaarsi ku saabsan lacagaha tooska loogu qaado ayaa hadda bilowday inay agbedelato kooxda waxaa la soo wariyey inay beddeshay dhammaan akoonnadii ay lacagaha ku qaadi jirtay iyo telefoonnadii ay dadka ka soo wici jireen iyagoo dan leh inuusan istaagin mashruucooda dhaqaalaha waxaa la isku raacsan yahay in haddii kooxda dhaqaalahaan loo curyaamiyo oo aanay lacag ka helin gudaha inaanay dagaalka sii wadi karin maadaama ay ku adkaan doonto inay hub la soo degaan dhaawacyada daawo u helaan ama ay iska bixiyaan mushaarka kuwa u dagaalamaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo heshay xog ku saabsan inay kooxdu beddeshay akoonnadii iyo telefoonnadii ayaa iyaduna kor u sheegtay maanta mowqifkeeda dadka lacagaha ku taageera argagixisada iyo telefoonno dadweynuhu la xiriiri karaan si ay dowladda ula wadaagaan akoonnada iyo nambarada cusub ee ay u guurtay kooxdu xog shacab iyo shaqo sirdoon oo iskaashaday ayaa la sheegay inay sababtay in akoonnadii hore iyo nambaradii hore ee al-shabaab la curyaamiyo haddana waxaa rajo laga qabaa in dadka oo aan ku qanacsanayn lacagaha baadda ah ee ay kooxdu ka qaado inay bixin doonaan xogta baraha dhaqaalaha ee kooxda al-shabaab maanta waxaa shir jaraa'id wadajir u qabtay wasiirka maaliyadda wasiirka amniga ku-xigeenka wasiirka warfaafinta booliiska iyo xeer ilaalinta iyagoo ka hadlay sida ay dembi weyn u tahay in lacag la siiyo al-shabaab dadka diidan lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab waxaa u soo baxday fursad ay dhaqaalahooda ku badbaadsan karaan waana inay mar walba gudbiyaan akoonnada lacagaha loogu shubayo kooxda iyo nambarada laga soo wacay markii la curyaamiyo barahaasna qofkaas xoolihiisii waa u baaqdeen kanaalada ay dowladdu faafisay si xogaha loogu soo diro kaagama baahnaa inaad is sheegtid dowladduna waxay sheegtay inay dad u tababaran shaqadan hayaan barahaasi lagu soo diraayo xogta dhaqaalaha ee kooxda al-shabaab shirka jaraa'id ee maanta ee dhowrka wasiir wuxuu lahaa culayskiisa wuxuuna muujiyey sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay in dhinac walba laga wiiqo al-shabaab shacabka ayaa si weyn u aaminsan in dagaalka dhaqaaluhu uu yahay mid badbaadin doona jeebka ganacsatada oo dhinaca kalena yareyn doona qaraxyada kooxda dowladda federaalka ee Soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorshaysan iyo weerarada tooska ah ee ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed marka ay aragtay dowladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyada oo dardar gelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab iyo argagixisada kale ee la midka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab iyo cadowga la midka ah ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed haddaba dowladda Soomaaliyeed waxa ay markii ay dhaqan gelisay kadib go'aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dowladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xiriira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka Soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay'adaha dawladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefanada lacagaha lagu qaado akoonnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dawladda Soomaaliyeed ka codsanaysaa in aad la soo xiriirto telefoon lambarada kala ah eber 6 eber 4 eber 4 eber 36 ama eber 6 hal eber 4 eber 4 eber 37 teleefanadan waxaa si joogta gacanta ugu haya hawlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray kuwaas oo markasta ka jawaabi doona wicitaankaaga habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga
looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aadan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dawladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab xogta aad nala wadaagto muwaadin waxa ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda kooxaha argaxanka daran ee argagixisada ah ee al-shabaab sidoo kaleeto in lacagaha baadda ah ee la siiyo la yareeyo waxa ay yaraynaysaa oo ay joojinaysaa dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan qaraxyada dilalka qorshaysan weerarada iyo maran habaabinta ay u geysanayaan dhalinyaradeenna maxay kula taadiga